sidii aad xiriirka lahaydeen adiga iyo Safiya in bulshaduna ay sheegayso iyaduna ay sheegtay in lacag ay jirtay aad ku handaday oo aad tiri hadii aad lacagtaasi bixin weydo muuqaalada iyo sawiradaas aan soo bandhigaya arintaasi maxaa ka jirayada waxa jirta lacag $22,000 oo la carabaabay oo dalbatay ma jirta lacagtaas saan horeba kuugu sheegay waxaan kala soo fariistay ma diyaar wahay wixii aan Safiya ka maqlay inaan ka jawaabo taas wali carabkeeda kama hayo laakiin marka cid kale oo bilaadan oo meel ka hadlaysana waqtiina ku lumiyo ama waxaan munaasib ahayn ama waqti xaadirkan bartankeeda ama cilmi ay sameynaysaa ma jirto waxgaag halkani waxa ku sugan barbarkayga Cabdi Ciise Cajuun oo runtii ah abwaan da'yar kana mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa hadda ku nool Cabdi sideen loo wada soconay baraha bulshada maalmihii ugu dambeysay waxa haystay sawiro iyo muuqaalo laga duubay fanaanadeena qaaliga ee Safiya Tusmo oo runtii ah hooyo Soomaaliyeed isla markaasina lagu soo bandhigay baraha bulshada taasi oo muran fara badan dhalisay bulshaduna kala duwan ay uga daran celiyeen bal ugu horeyn waxaan jecelahay maadaama adigu aad tahay eedaysamihii loo soo jeediyay inuu falkaasi ka dambeeyay oo sawiradaasi soo dhigay bal qaabka ugu horeeya ee aad isku barateen adiga Safiya iyo xilligaad isbarateen inaad noo sheegto sagale horta walaal aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa aniga Safiya waqtigan isbaranay hadda waxaan isnaqaanaa muddo ku dhow 2 sano waxaan isku baranay suugaan silsilad ka bixi jirtay channelka Cabdi Askari TV oo isagana halkan aad uga salaamayo oo silsiladii ahayd hablayo xishoodkii xageebad ku xorteen ayaduna hees ku lahayd aan hees ku lahaa marka waqtigan isbaranay waqtigaas ay ahayd muddo hadda laga joogaano waa 2 sano 2 sano waxagaag goobtii ugu horeeyay isku barateen ما إنه تلفون كود هذا الله سينا نسرقنا أنت هذا تلفون كود هذا لنا لكن نسرقنا أنا يدو حتى سوقها يرسا حتى سوقها يرسا أركتي أهان هذا سوقها يرسا لكن حرير واحد كو حريري شرتين تلفون كها بين على تلفون كها واتساب كها ما سنشر كها أنت بقول كود هذا الجري لكن سلا يفعلنا نسرقنا ما أنت سوقها يرسا قاب كذا حريري شرتين نسال شرتي وحوها قاب سوقانات أن ها مركها يعني هي قاب كان سكوبرني دي ودي سي صارت سكوبرني أول مرة واحد هيد سوقان يفن سكوبرنا ساسين maxaa intaasi ka sii dambeeyay intaasi waxa ka sii dambeeyay aniga Safiya waxaan dhex maray relationship iyo sheeko iyo xiriir dan tawakkalkaas xiriirkaasi intee lag buqaat wallahi horta waxaan soo xiriirinay sheekaysanay muddada naqaanay waxay ahayd 2 sano laakiin waxaan oran karaa muddada sheekaysanay ama yani xiriirka lahayn hal sano iyo dhowr bilood meel hawo noqonaysa waxa markaynu intaas ka nimaadno waxa timid magaalada Hargeysa qaab nooceed ku timid magaalada Hargeysa halkeedsa ka timid marka hore waxaan ka yimi magaalada Egypt wadanka Egypt gaar ahaan magaalada Qaahira hadda wadanka waxaan joogaa adigu muddo 9 bilood meelahaas marka sababta ku yimi iyo arrimahan ku yimi mid aniga Safiya na dhex maray ama aan isku weeron ka wada soconay sida dad badan oo xogaal noo hibay ka dhigsan bay ahayd saas waxa jirtay in lagu xidhay oo lagu xidhay magaalada Hargeysa CID-da ama sirdoonka lagaga yeeray bal sheekadaasi siday ku dhacday iyo qaabkii u dhacday baan doonayay inaad nooga waranto sheekadaas horta dadku inta badan waxay ogyihiin xariga Safiya laakiin dadkan yar oo adiga iyo dhowr qof oo kala aba inaan anaguna la xidhnaa og laakiin sheekada hadda bulshada u biyaamiyo maalintan heestan ismuutiisay qalinliga maandeeq ay wada qaadan anaaniya Safiya doornay aan ka soo dareernay 5 galabnimo Crown Hotel meelaha ayaa markaan meesha ka soo dareernay waxaan isku weynaa xagan suuqa isku nimaadno deetana inantii telefonkeedii ba xidhmay anagu isma naarag 9 habeenimo ila soo haashay gabadh wariyay waxay sheegtay in iyadii Safiya la xidhay xagee la idinka qaaday baan ku wuri markaa waxay ku tiri home cable ka horsan laga qaaday indhahana laga xidhay aniga Safiya markii dambe aan indhaha ka xidhan baa la soo celiyay Safiyana waa la xidhay cidi madiinaadkiisii miicina ma yarkeen marka waa saxay hadda meel ka raadina ma garanayba meesha malahay dan waxaan ku dhaadaan raadinayo inaan soo helo in isku dayna saldhiga dhaxaanimi saldhiga dhex markaanimi wax la igu kuma jirto koodbuur baan tagay markaan koodbuur tagay ku gabadhaas meesha ku jirtaa intaan la jawaabin ayaa waxa laga qaaday telefoonka oo la igu soo Cabdi Ciise muti ha telefoonka u baahan dadna soo askarta weydiyo waxay noqotay qof xiran baabana socdaa maxaa telefoonka laga rabaa kadib waxa la igu telefoonka waxa u baahan CID-da وانا امر انغا naga sareeyo
haye telefonkaygii waan siiyey waan deetana ka tagay haye inantii markaa la hadlo waxaan ku oranayaa oo fiima aan la hadlo waxaan ku oranayaa gabadhii waxa la igu yiri xagaasay ku xiran tahay laakiin anigu maan arag anigana telefonkaygii baa laga qaaday haye labadii habeenimo mar ay ahayd ay haddana inaan soo waxay u tusay tii xanuunsan dawooyin iyo alaab u geeyno haye dan inantii waxay ku timi guriga anigoo la fadhiyo Cabdinaasir Macalin Ciidi Cabdiraxiin Axmed Carab oo isagana halkan aad uga salaamayo anigoo xir badana kadib iyadoo gaariga watay gurigii ugu timi waxay u timi ka maarmi maayo inaad raacdo ama aan Sofia dawada u geeyno tii xanuunsan okay waa sax baan ku wari waan suraacnay markii aan saligi ku noqday markii labaadna waa la xidhay wax lagu adigana waa lagu baahan yahay so habeennimadii halkii waan ku hoyday inantii iga soo noqotay baan u qoray fiimaha ahayd baan u qoray markii xaafadeeda waxaan ku dhahay xaafadeeda iyo reerkiisa ugu sheegan aan xidhanahay dan subaxii markii ugu bari baan indha ka xidhan lay qaaday CID da leegay CID da maanta ma xidhnaa shantii galabnimo markay ahayd baa la yeeray dan waxaan ku maxaan ku xidhanahay waxa la igu yiri lambar aad leedahay adigu telefoonada oo kugu qoran ayaa lambar aan raadinayay muddo dhowr sano ah soo wacay labada lambar markaan anigu sitaaba isagoo kan gabadha u dhiibay baan weydiiyay waxa la igu yiri waa ka gabadha u dhibtay gabadhaasi waa Safiya marka okay marka lambarkan xilliga la soo wacay xilligan anigu sitayba isagoo waa xilliga iyadu sidatay waqtiga lambarkan aan raadinaysan ay contactiga la sameysay marka waxa la igu yiri waa inta iyadu sidatay dibas hadaba iyada la xiriir baan ku wada dan waxa la igu yiri waa sax waxaan u baahnay Gmail-kaaga يعني dadka qaar bararkay bara bulshada ku soo qorayeen inuu istifaaciyayo hadii la waraysto hadalka run kama sheegayo CID da iyo ciidanka qaranka iyo maanta Hargeysa jooga wax been laga sheegi karo ama aan yani waxaan la igu sameeyay ama falan la igu la kicina ka sheegi karo maaha dan waxa la igu Gmail-kaaga aan u baahanay baasuurkiisa dan waxaan weydiiyay maxaa Gmail-kaaga iyo lambarka la soo wacay gabadhu seeto iskaga xidhan waxa la igu hawlan anagu u baahanahay telefonkaaga waad ka tagaysaa adigana waan ku sii deynaa Gmail-kaaga saxda ah isticmaasho noo sheeg laba nin baa markaa wareystay labadan baa Gmail-kaaga iyo baasuurkiisa weydiiyeen sidii baan ku siiyay waan tagay marka saddex cisho marka la iga hayay ayaan soo noqday deetana waxaan u tagay Faisal Xiis waxaan ku dhahay telefonkaygii waa la iga haystaa dimensionada ka shaqeyn jiray macna la iga qaadiyo qaab la iga haystay midna ma garanay hadii aan dambi leeyahayna nimankan ay sheegan waxay telefonkayga ku haystaan hadii kan la soo siiyaan inankiiba markaa la hadlay kiiskayga gacanta ku hayay wuxuu ku ninkan haduu kiis leeyahayna ana xiraya hadii kan telefonkiisa soo siiyay anoo yimaado baa leeyahay Britol galnoodkii markaan tagay waxaan u tagay waxa la dhibay tele waxa la igu niyo si fiican baad yeeshay si wanaagsan runta noo sheegtay telefonkaygii oo la restore gareeyay tan waxaan ku maxay ku dhacday telefonkaygii la restore gareeyay hadii waxyaabo adiga ku anfacayo kiis ku ay aniga kiis ugu ay ku jiraan maalinta soo qaato cadeynay iga dhigto deena maxkamadda ugu geysan sababta keenaysa in telefonkaygii la restore gareeya maxay tahay deena wuxuu igu dhiniyo arrin si qalad ah u dhacday weeyaan okay telefonkayga si qalad ah u dhacdo Gmail-kayga in la bedelo oo la guba iyaduna mid si qalad ah u dhacday baan ku dan waxa la igu waxaan ku balan qaadanay xogtaada inaan ku soo celino arrinkanna waa mid qalad kugu dhacay marka waxaan la yaabay bay igu noqotay waan iska soo baxay sidii baan ku yimi arrinta xalagaygu iyo ka Safiyay saas waa xaaladdan ka marayna taasay ahayd وحاجات dadku waxay inta badan isweydiinayaan oo maxaan idhaahdaaye lagu soo celinaya oo waliba anagoo de hooyooyinkii Soomaaliyeed kamida aan aad uga dareen celinay inaad adigu ka dambeysay Safiya sawiradeeda lagu baahiyay baraha bulshada waliba muddo in badan oo 2 sano ah aad Safiya lacag kula baayactamaysay $2,000 oo xataa jirtay sida la sheegayo inaad meel magaalada ka baxsan intaad la tagtay aad baastoolad madaxa kaga qabatay oo tiri haddaad lacagtaas bixin weydo maxaan idhaahdaaye naftaada sawiradana waan baahinaya sawirada inaad soo dhigtay ta lacagta aynu dambaysiinay maxaa ka jira ni horta arrinkaas waa arrin aad iga yaabiyay yani mudbayna Soomaaliyeedu cid waliba dhaqan bay leedahay yani horta ariga iga suurtooba iyo waxaan yeeli karaa midna maaha hablaan la dhashay hooyo ay dhashay haddana anigu qabaa yani midda kale qofka doonaya qof inuu ceebeeya isagu iskama bilaabo qof adduunyada ceeb ku naaxa ma jiro oo yani isagu yani shakhsi bilaadan oo dhibka raaxa moodaya ma garan karo de meel ku nooliyay ama dadkan qaylinaya inuu ku jiro laakiin qofka doonaya inuu qof ceebeeya inuu isagu iska bilaabo wallahi ma garanayo meel ka dhacday meel ugu arkay toona almiina xitaa hadii yani horta wixii iga suurtoobiyo waxa sameyn kara midna maaha hadii si xitaa dadku waxaan isweydiinayn haddaan anigu sawiradan qofka soo dhigaya ama u bareerayahay maan garan waayin xitaa inaan wajigayga ama indhahayga ama madaxayga meel uun qariyo xitaa soo moogid marka arrinkan waxaan shaqo ku leeyahay maaha wax iga suurtoobana maaha waxaan sameyn karana maaha waxaan sameyn jirayna maaha waxaan sameyn doonana maaha waxaan aaminsanay shil aniga Safiya nagu wada dhacay inuu yahay
cid kasta oo falka ka dambeysay maxaad cadeyn haysataa ama ku cadeynaysaa inaanad samaynin falkan maadaama dadkoo dhani ay aaminsan yihiin oo ka aamineen inaad waxaan samaysay adigu sidaan horta kuu sheegay aniga Safiya horba kugu sheegay waxaan nahay laba qof oo relationship ka dhaxeeyay haddii aan markaa u baahnahay ceeb aan iyada ula bareeraya inay jirto ma waa in sawir kaligeeda laakiin ceebta aan walaashay la doonayo anigu iskama bilaabeen waxgaag abwaan Cabdi Ciise waxa intaasi sii dheer maadaama ninka gabadhiisu ay tahay hugiisa oo ay tahay inaad yani maadaama hugaygi tihiin inaad noo xil qarisaan asturtaan Safiya waxay sheegtay in gurigeedii ay ka dhax bilaamatay sheekadu oo yani adigoo ninkeedii aad ceebaysay bulshaduna waxyaabaha aadka ay uga dareen celiyeen ee looga fal celiyeen ilaa anaguba aanu ka xumaanay ay tahay naagde ama gabadh uu ninkeedii ceebeeyay oo maradii ka qaaday arintaasi maxaad kaga jawaabaysaa san horaba kugu sheegay horta ninka gabadhan ceebeeyay oo adiga horaan kugu sheegay waa ka madax banaanahay oo waana ceeb aniga iyada nagu wada dhacday arrinka qabista markay noqoto aniga Safiya ma relationship naga dhaxeeyay sheeko bise inay gabadheedii ahayd relationship iyo sheeko way naga dhaxaysay laakiin qabid aniga Safiya aan isqabnay ma jirto haddii wax intaa ka duwan oo la hayaa jirtana ciddii haysaa soo madhugta diyaar baan waaya marka waxaad leedahay wax qabiso oo meesha jirta maba jirtaba maxaad ku cadeynaysaa wallaahi kulley guurku waa wax weyn Safiina waa gabadh caana marka la isguursanayana wax qarsoon maaha marka la isfurayana wax qarsoon maaha marka hadda tusaale ahaan walaashii Safiya saan anigu iyada ka maqlay ama kalibadan daawaday 3 jeer bay hadashay marka koowaad ee ay yani arrinkan laga jabsaday sheegaysay waxay sheegtay in relationship yeelan karto qof cid relationship ka dhaxaysa jirto oo relationship naga dhaxeeya jiro marka labaad wareysiga ay shiina culeysay waxay sheegtay in dad isqabay oo isjecel nahay dadkana naga dhex baxan marka saddexaadna waxay sheegtay in furiin dalbatay kiina ay ku guuleystay oo la furay waa isla muddo 5 cisho gudahooda waa saddex hadaloo madiinada u dhaweyn sax wala la marka hadda muhiimadda markaan ku soo ururiyo aniga iyo inta wax qabiso naga dhaxeeyo oo meel noo yaala habeeraatay ma jiro waxagaag waxa jirtay muddadii aad xiriirka lahaydeen adiga iyo Safiya in bulshaduna ay sheegayso iyaduna ay sheegtay in lacag ay jirtay aad ku handaday oo aad tiri hadii aad lacagtaasi bixin weydo muuqaalada iyo sawiradaas aan soo bandhigaya arintaasi maxaa ka jirayada su'aasha anigu hadalka iyada kamaan maqal laakiin waxay cid kale yiraahdeen ama qof YouTube yiri ama qof kale live ka hadlaya yiri aniga waxay qosay maaha kaliya waxaan diyaar u ahay wixii aan walaashay ka maqal kaliya inaan ka jawaabo marka waxaan sina wax iyada ka soo baxay maaha waxaan hadda anigu jawaabayna maaha because waxay tiri maaha خلاص waxagaag waxa jirtay inaad baxsatay sida dadku sheegeen Ethiopia baxsatay arinta baxsiga maxaa ka jira horta sheekadani waxay socotaa muddo 6 cisho anna sida sagal adigu moogtahay waxaan ka maqnay magaalada waxaan ka maqnaa 22 cisho marka falku goortu dhacay iyo goorta anigu tagay horta wax isu dhooba ma yahayn marka wuxuu ma arkaa in di hadal meel waayay ee haddaan baxsaday hadda waan soo noqday cidii doonaysa hay timaadada waxagaag waxa jirta lacag $22,000 oo la carabaabay oo dalbatay ma jirta lacagtaas san horeba kugu sheegay waxaan kala soo fariistay ma diyaar wahay wixii aan Safiya ka maqlay inaan ka jawaabo taas wali carabkeeda kama hayo laakiin marka cid kale oo bilaadan oo meel ka hadlaysana waqtiina ku lumiyo ama waxaan munaasib ahayn ama waqti xaadirkan bartankeeda ama cilmi ay sameynaysaa ma jirto mar kale aan kugu celiyo lacag $2,000 ayaa bil kasta ay biil kugu soo diraysaa leeyahay Safiya arinta kale iyadana maxaa ka jira horta laba qof sheekaystay relationship ka dhaxeeya wax way day isu dirayaan wax way kala qaadanayaan oo way magaranaysaa wax kasta dhex kara laakiin cadadka la sheegay iyo waxaan aniga Safiya isu diri jiray anigu ma ogi oo $2,000 ee bil kasta joogtada hayo ama aanu kala badsano ama aanu kala yareysano laakiin dadka marka ay sheekay xiriir dhaxayaan wax way sasinaya waxay laakiin Soomaalidu cabiratay wallahi iyaga ka jawaabaya waxagaag waxa jira Facebook lala dhaxmarayay imika qaybaha baraha bulshada oo daqiiqad loo soo update gareynayay oo ilaa sawir aan galay la soo dhigay oo adiga ka hadlayay Facebookaasi ma adiga isticmaala
anigu facebookigi muddo hadda 5 cisha deactive baan ka dhigo hawada baan ka saaray laakiin waa fake account iyo dad ama falo ku raadsanaya ama wax kale ku deedeeyay wax facebook hadda anigu gacanta igu jira waqti xaadirkan ma jiro hal facebook baan isticmaalaa kiina deactive baan ka dhigo hawada buu ka maqan ma jira intii ay soo baxday sawiradan lagugu eedeeyay inaad ka soo dhigtay walaashin Safiya Tusmo wax dhibaato adiga ku soo gaadhay maxaa ku soo gaadhay nasabcay bay soo gaadhay hansabaad bay soo gaadhay qaar la waan ku dilayna bay soo gaadhay qaar la hargeysa sida ugu soo noqon bay soo gaadhay yacni tii adigu waa yacni wallahi waxaan xitaa yacni hadal aan de meel u haystay iyo meel u socday iyo meel ka socday min aan garanayn baan de wararkayo waan dhaafayo laakiin de haddii ay tahay adiga habaar kaysa leecayo haddii habaar tahay adiga habaar kaysa leey habaarayo haddii hansabaad tahay wax qarsoon bade ma markaas u soo jeedinaysa bulshada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa horta dad 1 milyan ku dhow ayaa baraha bulshada naga habaarayay oo in badan habaartamay oo ma garanaysaa waxaan horta caawa ilaahay magan uga ahay inaan ummadda Soomaaliyeed iyo habaarkeeda aanu qasaarin mid ilaahay ka aqbalo oo noqdo haddaad falkii geysatay haddii markaa hadalka waan kuu soo wadaayay haddii waxaan anigu sameeyey uu yahay ummadda Soomaaliyeed ee 1 milyan ku dhow habaartamaysay waxaan habeenka caawa jecel in ilaahay ka aqbalo waxaan geystay hadduu anigu yahay inaan ilaahay iga harin ummadda Soomaaliyeed habaarkoodaasi igu dhaco haddii kalena cidda geysatay uu ku dhaco sideed u aragtaa in tabriyahan dambe waxa soo badanaya in gabdhaha la ceebeeyo adigoo kaba midaba deemka eedeysanayaashii inkastoo halkan iska difaacday sideed u aragtaa qof gabadh ah oo waliba ama caan ha noqoto ama yey noqonin in la ceebeeyo ama la handado oo la blackmail gareeyo loogu hanjabo waxaasan ka hayaa iyo waxaasan kugu sameyn doona waxaan arkaa wax aad iyo aad u foolxun وحرانا دقن كإسلام كبحسن دين الإسلام كبحسن دقن كصومالي كبحسن يعني أو واحدة لتلمام واحد لقول تلمام كرعان وشرين به وحاجات مركي إنه كسر نقلنا واحد شرتا هاس أي صفية قاده هاس تو حلال هذا وقيقيا هاس تاسي بالقصة ده أيان شعلين النور شكس ni horta heestaasi waxyaabo ugu badan la soo diriyay dadku ay ilaahayeen ninka gabadha san ugu hoybaad horta ummadda Soomaaliyeed waxaan sheegayaa qofna madidiisa laguma gowraco heestan horta ana iska lahaa qisada heestuna sidan ma yahayn aniga Safiya wax naga dhaxeeyna ma yahayn waxaan taayada ka sameeyna ma yahayn waxaan iyadoo sameeyna ma yahayn waxa jirtay in Safiya habeenada ka mid la soo hadashay yani inaan saaxiibnahay oo leeyahay Khadar Fiyoore Khadar Maxamed Abukur ninka la xanka saaray oo halkan aad iyo aad uga salaamayo ayaa waxa uu tirniyo gabadh baa jirta doonaysa hees deetana qisada dhaba markaa maxay u baahan tahay in looga sameeyo waxa uu tiri gabadha ninkii ay isqabeen ee hore ayaa ninku kula lahaay oo dhibay deetana wuu furay ciyaalkii iyadoo haysata wiil kale oo Soomaaliyeed relationship dhex maray marka xagga ka eegaysay inay kaga raysato dhibtii rafaadkii kii hore soo mariyay ayaa kiina iyadoo guursan ku noqday midkii kaga daran marka wayna jeceshahay hadda qof ay ka go'aan qaadan karto ama ay ka tagi karto ma aha deeto waxay u baahan tahay in qisadeedan loo tixgeliyo hees looga sameeyo waa sax waan ku wuri habeenkii waan heesta beejka koobaad sameeyay ninkaasoo ila fadhiyayna laxan ku saaray Khadar Fiyoore dan gabadha heestii waqtiga ay soo bixileed aniga Safiya waan ka wada hadlo waan weydiiyay marka waxaan ku wuri gabadhii inantii maxaa ku dhacay heesteedii oo deedna waxay ku tiri gabadhii aabaheed baa dhintay gabadha waxay igu sheegtay magaceeda in Farduus la yiraahdo I think Minnesota iyo Minneapolis labada mid bay deganay markii dambana inay Nairobi qabatay marka heestaasi waxaan naga naqusayna ma yahayn waxaan iyadoo sameeyay ma yahayn waxaan qisadayda ka sameeyay ma yahayn waxaan gabadhaas u sameeyay ayay ahayd sida de aniga iyo ninkaasi waa aanu ka marxaati ahayn walaashii anigu ma aan isloognahay waxaad ugu dambeyn fariinta diraysaa maxay tahay ugu dambeyn fariintan diraya aan rabayna halkan ka diro ama ummadda Soomaaliyeed u sheego waxa weeyaan dadku horta garba iska qaadan waqti xaadirkan xitaa anigu imka waxaan dhibano waa cidaan dhibano oo hayba garan maayo haysato aan ka ahayn dad Facebook iyo YouTube ka qaylinaya marka laga reebo hadallada de walaashii ka soo yeeran hore uga soo jawaabay laakiin Safiya ma oran ninkana waxa ka soo dhigay Safiya ma oran ninkana ay ceebeeyay oo inta jeeray hadashay badii qof yaani sida Ilaahay ku ogeeyay ma xaqad tahay u hadlaysa baheed waan uga mahad celinaya laakiin ummadda le waxaan baa dhacay iyo sidan baa dhacday waxaan leeyahay wax kulli hubsima hal balastaabay Soomaalidu tirada qof kasta iyo wuxuu qabanay Ilaahay baa marka waligiin yaalihiin dadka waxaan ku wanayaa inaanay gar qaadin iyagoo on labadii qof labadaba arag intaas uu gadhay aad iyo aad noona salaamay inkii soo caayna waan salaamaya kii soo hawaarina waan salaamaya
kii difaacina waan salaamaya dhammaan waa dadkayga iyo kulli hadii deecay ama qalad aaminsanayeen oo yacni fikir qaldan dee laga dhaadhiciyay iyo intii ka saxan haysatay dee aniga ila socotay labadaba maanta waa dadkayga iyagana waan salaamaya وهجاج أدبد ما هتصنت هاي كاسنا وحوها عبد عيسى عجون أبوان كدا ذير ونكور السنة أرميه براها بالشدة قبصدي ولاش صفية تصبو تانية كلام تدم بس تاسينا بتقلي أدبد ما سنتين